بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kasta khiyaarta joogtaan waa walaashiin kaafiyo oo leh wax kastoo idinta wanaagsan. bacda daa maxaa haysiin xaaladiina ka warrama siday tihiin? alxamdulilah anoo caafimaad qaba haddaan idin soo horjoogsaday, idinkana waxaan idin rajeynayaa caafimaad qabtiin, intiina xanuunsan allaha caafiyo. intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadalno please inaa haddaad channelkayga ku cusub tahay please hayga ilaaban subscribe-ta, share inaad dhexdid asxaabtaada la wadaagtid, wixii rayaa leedahay qabtid comment kusoo qortid, like inaad ahdid videoga. waadna ku mahadsantihiin asxaabteeda. inta hore iila joogtana aad baa u mahadsantihiin. si sharafi karaama allah idinku waariyo meel kastaad kala joogtiin adduunka. waadna mahadsantihiin sida sharafta leh aa mar walba dhiirigelinta ii gelisaan ayaad iigu ducaysaan. dhammaanteenna saasoo kale ayaan idin jeclahay. ilaahay idin jeclaado, ilaahay idinka dhigo, yacni aad baadna u mahadsantihiin. yani mahadda koobaad ilaah baa iskale, tan labaadna idinkaa iskale. waxaan ka xumahay haddaa hadalkayga sometimes uu ka dheeryahay oo kale ka raali ahaada. haddii aan maqal jiro waxaan jeclahay insha allah inaad iga soo sheegisiin. anyway waxaan rabnaa inaan waxyaabihii aan hore uga hadli jirnay oo kaleeto aan uga hadalno. xoogaa yarow qaraxay ku doorashana aan gashano insha allah biidnillahi tacaala. waad mahadsantihiin joogitaanka ila joogtiin. sii karaama allah idinka siiyo. maxaa la dhahaa, qof walba dadkiisu wax ku yahay, dadkiisu meel gaarsiin karaa, dadkiisa qof ka dhigi karaa, yacni uu dadnimo ku yeelan karaa. dadkiisa ayaa inuu sharaf dallo iyo magac darro ku yeelan karaa. ma fahamteen? waxaan ilaahay ka baryanaa anagii idinkaba inuu wax sumcadda ilaahay nagaga qaado aanu ina samaynin. ma garateen? wax fiican mar walba inaad dadka la wadaagto wax wanaagsan. wixii xumaatana aad ka tagtid. aad mar walbana wixii negative-ka dhinac baa layska mariyaa, because haddaa negative mar walba dhigaada ku dhacaan adiga dhan baa negative noqonaysa. waxaan rabay inaan ka hadlo video oo maalin dhaweyto oo aan ku arkay social media xalay miyaan shalay, oo looga hadlayo gabar Soomaali oo tiktok caan ku ah. khasab maaha ama yacni inaan magaceeda wadwadno ama aynu sheegno. muhiimadda aan ka leeyahay sheekadan waxay tahay mataqaaniin, nimayow, rag iyo dumarow, gabdha iyo wiilalow, marabo iyo mudanow, haddaynu maalin walba xumaatada iyo dhaqan xumada social media aynu lagu wado aynan ka dhiidhiyin, waxaynu noqonaynaa sida dadka wadamada ajnabiga oo kale ku nool anigu ka mid ahay, ooynu u aragno qaawiska. aynu u aragno haddii bannaankaas laba isku gudayaan, waad garanaysiin waxaan ka hadlay, isku gudayaan sidii eegiyo xayawaanka kale isku gudaan. gaaladu ma kala xishoodaan, yacni kama dhiidhiyaan. gabar baa hooyadeed lagu agshukaansanaya maatiriye lagu hor cuni karaa. ma fahamteen? aabbaheed baa u galmoonaya baa lagu leeyahay, adeerkeed baa u galmoonaya baa lagu leeyahay. waxaasoo kale yacni say uga dhiidhiyin gaalada ama yacni dadka ajnabiga aanu aragno aanu uga dhiidhiyina uga hadli karin. xataa haddaynu rabno inaynu ka hadalno aynu uga hadli karin, ka dhiiban karin awraahdan iyo ereygeena aynu uga dhiiban karin. ayaanu maalin ku soconnaa haddaan nahay Soomaali haddaan nahay saasaynu ku soconnaa. waayo dheh ma gabar baa la kufsaday, kama hadlayno. gabar baa dabaq laga soo tuuray, kama hadlayno. gabar baa video laga duubay, kama hadlayno. maalin walba social media gabar Soomaali ah baa maraysa videoyaasheeda oo looga hadlayaa la wadaa. futaday soo qaabistay, naasay soo qaabistay. gabadha xataa gabadha miskiinta ee walaasheena oo la wadwado labadan beri haddana topic noqotay. xataa iyadii mal si fiican qofka looguma jeedo, si fiican heedhe qofka looguma jeedo. why maxaad ka faa'iidaysaa intaad videoga soo qaada editarsanaysa inaad ku raadisatid gabar baasaan ah? waxaan kaloo arkay maalin dhaweyto xalay bay ahayd, wallaahi alcadiim xalay bay ahayd. youtube kale ayaan waxaan ku arkay nin leh waxaa dhacday gabar Soomaaliba life loo bigray jibiyey. bal dhegeysa hadda hadalkaas.
life baa loo burburjibay ninkii oo ka dhex hadlaya videogan gadaashiisa ayaa ka arkaysiin ninka videogu markaan dhammaysta waxna kuma arkin laakiin waxaan aragnaa hadalkii iyo mara kabar wax la qariyey waa la qariyey waxba lagama dhex arko meesha ma fahmaysaa macnaha iyo ulajeedada ula jeedo ma fahmaysiin maalin walba waxaasoo kale haddaynu dhagahana ku dhacaan aynan ka dhiidhiyin aynan ka hadlin marka soo manihin dad bini'aadnimada ka dhimatay oo sida gaaladii oo kale annagoo dad islaam ah boqolkiiba boqolna la ku sheegi jiray maanta ma dhihi karno boqolkiiba boqol soomaalida waxa weeye muslim yaa daraad waxaan arkay iyadana video wiil iyo gabar soomaali ah oo maraykanka jooga aniga sida lay sheegayo dadka gadaalba waxay leedhahay kaafiyoy videogan wuxuu ahaa mar hore yaa wuxuu ahaa mar hore waxaa ku qoran videoga boor bay wataan ex muslim somali christian american somali christian boor bay wataan qof kalaa wareysanaya yes why maxaa loo wareejinayaa yaa islaam baa soo qaawis islaam baa waxaan ah waay raggiina loo arki laayay inay maxaan ku dhahaa qaawanaantiina iyo dabdaradiina loo arki laayay waay gabdhaha walaalihiina marshad sharaftooda ilaalin lahaydeen oo sumcaddooda muslimnimo haddaa ku ilaalin weyse soomaalinimo haddaa ku ilaalin weyse oo muslimnimo ku ilaalin weyse oo binaadnimo ku ilaalin weyse ummaddii nabi maxamed inay tahay ku ilaalin weyse waay maxaa kaa qaldan maalin walba walaalow wiilka soomaaliyadow maalin walba gabadha ceebteeda markaa raadinaysa maxaa kaa qaldan walaalo macanow walaalayaalo maxaa gabdhaha ceebtooda u raadinaysin maxaa gabdhaha ceebtooda u wareejinaysin midka youtube labaa wareejinaya midka kaamarada haystaa wareejinaya midka dukaanka joogaa wareejinaya midka guriga u khayaananaya wareejinaya naagu gabdhuhu dumarku caqli yar yihiin waa caqli yar yihiin dumarku yaa waay maalin walba sharaf xumada ula doonaysa ma waan hooyo ku dhalin ma waadan walaal lahayn ma waadan caruur lahayn haddaadan lahaynna ma waadan ka baqan beri ka maalina gabar dhashid adigu yaa gabar lagu dhalo yaa ma wayna walaal kula dhalan maadan habreer lahayn maadan eedi lahayn yaa maadan ayey lahayn soo may ahayn dumar yaa ilaahi subxaana watacaala markuu aadan abuurayay muxuu xaawo feertiisa uga abuuray oo ugu talagalay inay isla noolaadaan yaa waay ilaahay baa ku asturay xaawo aadanna ilaahay baa xaawo ku asturay waxaynu ahaan jirnay dad sharaf iyo sumcad leh dad sumcadii karaamo leh dad magac leh intiiba haddaa maanta waddankeena rafaad naga haysto oo waddankeena balaayisaa u gaardinayso oo qurbihiina balaayo ku gaardinayso aynu ku namaan ammaan helaynin haddana gabdhihii kuwa waddanka iyo kuwa jooga canjeero kuwa duubayaa video laga soo duubay yaa gabar yar oo canjeero dubanaysa oo reerkii guriga layiri kasii shaqeey baa video laga soo duubay mid baa been u sheegaya waxan waa qalbi maskiin waa qalbi xabaxab dumarku maanta haddii aragto gabar soomaaliyeed ama hooyo soomaaliyeed hadday ku aragto qof dumar ay ku aragto adoo naraga oynaya way kula oynaysaa waxayna isku dayaysaa gabadhaas haddii awoodi weyso xataa wax kugu qabato yacni baahi ama ku hayso ama rafaad ku hayo waxay isku dayaysaa dahabka ee leedahay intay kuu furto inay kuu gado iyadoon cidna kuu aqoonin yaa war ilaahay ka baqo ragga soomaaliyeedu war soomaaliya dumar oo idinkuna dhiidhiya oo aynu ka hadalno oo waacigeli aynu ka dhigno inaynu waxyaabahan aan ka digtoonaano oo dowladda loo sheego haddii dowladda waxay qabanaysa diinta islaamka diinta lala tiigsado diinta dadka wadaadada loo sheego in yacni maxaan ku dhahaa dhalinyaradu ay ka kacdo rag maxaa ahaadana ma dumar ahaadana dumar rag badan oo sharaf la way jiraan rag badan oo cizi karaamo la way jiraan war waxaan idin leeyahay soomaaliyeed waxaan idin leeyahay walaalayaalow aynu ka tanaasulno waxaynu wadno aynu ka hadalno dhibaatada maanta socota sanadkan hadda aynu ku jirno yaa sanad khayraysan way horta adduunka waa kala xiray ummadii la kala xiray waa ilaahay qadartiisa annaka inoo ku fiirinaya saburkeenna ma fahamteen ilaahay awooddiisa maanta waxba kuma aha inuu jasaas laagdaad uga dulqaado waxaana haysta ee adduunka kala xiray oo dadka kala xiray soo mid garan ka warrama haddii idoo saas adduunka u kala xiriyo dhibaatadaas adduunka ilaahay uu nagu tijaabinayo uu annaka ku fiirinayo maxaa idin dhahdaa dulqaadkeenna iyo inaynu dad ilaahay yaqaananaha uga baxno
ونوgu filna haddana hadda in sanadkii saas ahaa ee adduunka dhan kala xirmay kala rafaaday haddaynu maalin walba wiil Soomaaliyeed gabar kufsanayo ama wiil Soomaaliyeed gabar ceebteeda raadinayo ama wiil Soomaaliyeed gabar video kasoo dubay cayuuni bay ahayd shala gabadhii la dhahayay gabar sharaf leh oo qurux leh oo karaamo leh weye waxay ahayd gabadhi waxaa ku xigtay gabar kaleto haye waxaa ku xigtay gabar in dabaq laga soo tuuro cunugta caashaa ahayd bay ahayd wartiira hadda ugu dambeysay bari lagu kufsado beerka lagu gogoyey baa haddana ku xigtay 5 jir baa la kufsaday sanadkan waxaa la yiri ilmaha la gatay waxaa la yiri ilmaha kaliya lagala baxay war sanadkan sanad khayraadsan isagoo ahaa haddana haddii fawaaxish iyo magaxumo adduunka kula ordaysiin soo wax dhibaato ma adduunkan dhan wuu soo maray waxaan inaga dhibaatadayna haysata iyo dagaalkii iyo rafaadkii iyo dadkan istiliyona haysta laakiin adduunka ma soo marin ilmo yaryar in la xoogo oo niman waaweynaatay oon hal ahayn oo 2 ahayn oo 3 ahayn inay gabdhaha yaryar xoogaan gabdhihii maanta soo kacaya ubaxii ahaa inay naftooda la seejiyo oo noloshana laga qaado sharaf xumana lagu dilo haddana kuwii soconayo dhaqaaqayo naftooda ku jirtay markii gabadh uu ninku wax ka waayo inuu magac xumo u raadiyo oo sharafteeda inuu ka qaaday karaamadeeda iyo cisigeeda uu ka qaado inuu isku dayo waryaarahayn inuu ilaahay ka baqo war ilaahay ka baq war laa ilaaha illa allah maxamed rasuul ilaahay ka baq war ummadii nabi maxamed baa tiina sida isku dhaama war heed dhahaya aynu dhiidhino ee walaalayaal oo dhan hadalno oo aniga haddaad ila hadli karinin qof walba qofka kale oo saaxiibkaayo soo hadli kara maanta social media soo fariisan kara ha ka jawaabo oo ha ka hadlo walaalayaalo please and please waana barayaaye yaa intaas caloolxumadan uga baxayna waxaan rabaa inaad ku xiro commentigana aad igaga soo jawaabtiin hal xiraal idin sheegaya yaa xogaa yarow kutuur ah gees katuur ah waaye waxaa laydinka rabaa yaa in aad sheegtiin magaalo wadamada Soomaalidu degta kamid ah kaba soo qaadiyaa meydka kaliya joogo meydka kaliya joogo ayaan idinka rabaa fiidiyogan ma sii dheeranayo insha allah biidnillahi tacaala waxaan rabaa inaan isku soo noqono biidnillahi tacaala inaanu iska badbadano is aragno maalin iyo habeen is aragno waadna mahadsantihiin dadkii hore ila joogay inta gadaal noogu soo biiraysana waxaan idin leeyahay fiidiyogan subscribe adoon saarin ha ka tegin comment qurux badan adoo ka bixiya ha ka tegin adoon share iyo like saarin ha ka tegin waa idin barayaa walaalahay qaaliga aad baad u mahadsantihiin waxaa idinkaga tegaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu